xafiisyada wakiilada maraakiibta koonteynarada keena ayaa maanta shaqo joojin sameeyay kadib markii uu wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad Saajin uu wareegta ka soo saaray tacriifadii bill of loading ee ay ku shaqayn jireen wakiilada maraakiibta isla markaasina amray in $85 ay ka qaadaan ganacsatada ay alaabta u soo qaadaan halka ay hore u qaadi jireen tacriifado kala duwan balse waxa arrinkaasi ka biyadiiday wakiilada maraakiibta waxaana xusid mudan in maanta ay dhammaan xidheen xafiisyadii wakiilada mas'uuliyiinta wakiilada maraakiibta ayaa hore u sheegay inay sameynayaan shaqo joojin haddii uu wasiirku ku adkaysto wareegtadiisaasi bal aynu dib u xasuusano hadaladii mas'uuliyiinta wakiilada maraakiibta keena hore ay warbaahinta ugu mariyeen wasiirka tada uu wasiirka ka soo baxdayna waxay u dhigan tahay sida tan wasiirku wuxuu leeyahay digreeto waxayna faraysaa tusaale markaan soo qaato boqolka container ee tusaale ahaan 20 feet-ka ah in aan macmiilka ka qaado $85 kaliya hadaba boqol container dekaduna aniga waxa iga rabtaa boqolka container 20 feet-ka waxa iga rabtaa lacag dhan $22,000 waxa isba bardhigtaan kooska iyo price-ka isba bardhig aniga koos waxa laga rabaa inaan bixiyo $22,000 boqolka container wasiirkuna wuxuu leeyahay adoo waxaad qaadataa boqolka container 85 qaado marka wasiirka waxaan weydiinaynaa anagu lacagta inta la xagaan ku kofar garanaa markaas muddo la qabtay 22 August warqaduna waxay soo baxday 22 July 6 bilood soo socdo maraakiibta soo socota waxay soo sidaan wixii ay Soomaaliland u baahnayd ee ganacsi ahaa isu socodkii ganacsiga taasi waxay shipping lines-ka ku qasbaysaa haddii ay xukuumadda iyo wasiirka Saajin uu ku qasbo shipping lines-ka in ay qaataan amarka wasiirka shipping lines-kana waxay ku qasbaysaa inay shaqadii joojiyaan maadaama oo aanay isku bixinaynin arintana ayaa dib u dhac ku keenaysa ganacsiga iyo isu socodka kala duwan ee Soomaaliland haddii ay labada dhinac isu tanaasuli waayaan oo midba midka kale uu dhageysan waayo Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SABT magaalada xeebada Berbera